xubnahan oo ahaa guddi loo xilsaaray in ay saxaafadda u gudbiyaan ansixinta miisaaniyadda 2016 ee baarlamaanka Jubbaland isla markaana qayb ka ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa saxaafadda ka hor akhriyay ansixinta miisaaniyadda 2016 ee uu yeelan doono baarlamaanka Jubbaland waxaana ay sheegeen in ay soo xaadireen ansixinta miisaaniyadda 2016 53 xildhibaan halka 9 kamid ah xildhibaanadaasi ay diideen ansixintaasi miisaaniyadda baarlamaanka Jubbaland sidoo kale waxa ka aamustay ansixinta miisaaniyadda 2016 laba kamid ah xildhibaanadaasi waxaana uu codeeyay 42 xildhibaan sidaas ayaana lagu ansixiyay miisaaniyadda 2016 ee baarlamaanka Jubbaland kala fadhigan oo ahaa kala fadhigii koowaad kiisii 54 ee ay yeeshaan baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen guddiga in diiradda lagu saarayay saddex qodob oo kala ah ilaalinta sharciga u degsan baarlamaanka Jubbaland la xisaabtanka wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale matalaadda shacabka Jubbaland waa kuwan qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo ka hadlaya arrimahaasi dhammaan waa salaamantihiin baada saxaafadda iyo dhammaan bulshooyinka Jubbaland waan salaamayaa sidoo kale xildhibaanka sida uu sheegay weeye miisaaniyadda shalay ahayd 15 bishii 2016 ay ansixiyeen xildhibaanada Jubbaland wuxuu soo maray processkii la marin jiray miisaaniyad markii la ansixinayo oo ahayd in cid ku shaqo lahayd ay soo diyaarisay marka hore miisaaniyadaas ka bacdi ay soo gudbisay golaha wasiirada ee Jubbaland golaha wasiirada Jubbaland ay ayaguna sidaas oo kale isku raaceen golaha wasiiraduna ay soo baasmareeyeen golaha xildhibaanada Jubbaland xildhibaanada Jubbaland sida uu sheegay xildhibaankii ugu horeeyay waxay qaadatay processkaas ka doodistiisa iyo akhriskiisa muddo ku dhow bil muddadaas ay ka doodayeen ka bacdi waxay ansixiyeen xilligaas oo ahaa shalay oo taariikhdu ahayd 15 bishii 2016 bismillaahir rahmaanir rahiim muxuu ahaa waan idin salaamayaa wariyaashiina iyo xildhibaanada sharafta leh ee ka soo qayb galay go'aankii ay shalay oo taariikhdu ay ahayd muxuu ahaa ay sheegay 15 bishan oo kalfadhigii koowaad fadhigii 54 oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano gaaraya 53 xubnood oo muxuu ahaa ay uga doodeen muddo bil ku dhow ilaa dhowr iyo 20 cisho budgetkii ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda ee dawlad goboleedka Jubbaland kalfadhigii shalay ay yeesheen xildhibaanada oo aan kor ku soo sheegay tiradii fadhiday oo ahayd 53 waxaa cod aqliyad leh oo muxuu ahaa gaaraya 42 xubnood ay ku ansixiyeen waxaa diiday 9 baa diiday 2 ka aamustay sidaa daraadeed muxuu ahaa dawlad goboleedka baarlamaanka Jubbaland oo maanta anoo magacooda ku hadlaya xubnihiin halka ay fadhiyaan muxuu halkaan ku cadeynaa in muxuu ahaa budgetkii sanadkii 2016 la ansixiyay shalay oo taariikhda ahayd muxuu ahaa 15 bishii 2016 muxuu ahaa waxaana ansixiyay 42 xubnood meesha waxa fadhiyay 53 muddo 26 maalmood ah waxa laga doodayay oo baarlamaanka loo qeybiyay budgetka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Jubbaland muxuu intaasaan u sheegaynaa muxuu ahaa caalamka dawladda federaalka dadweynaha reer Jubbaland inay ku diirsadaan in baarlamaanka Jubbaland uu hana qaaday uu go'aansaday in muxuu ahaa sharciyadii lagu adkeeyo baarlamaanka xildhibaanada Jubbaland maanta waa sharciyaashii shacabkay matalaan waa saddexda qodob ee ugu horeysa oo baarlamaanka Jubbaland ay ku shaqeynayaan waxa weeye matalaadda shacabka Jubbaland ilaalinta sharciga iyo la xisaabtanka wasaaradda maaliyadda 26 maalmood u fadhinay waxa ay soo qoreen wasaaradda dawladda ay u soo gudbisay ilaa wasaaradda maaliyadda waxay soo gudbinaysaa budgetka wasaaradaha dhan marka wassalaamu calaykum rakala iga dambeyn doono waxaan ku wareejinayaa xildhibaan Cabdikariin inuu faahfaahin yar bixiyo asagan waa mahadsantiin Sabir Abdulqaadir Warsan Sabir Honesty telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Kismaayo